afartii sano ee uu dalku hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa kor u kacay dareenka wadannimo ee dadka Soomaaliyeed ee kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. sidoo kale waxaa si weyn u soo laabtay rajada Soomaaliya mid ah nabad ah oo barwaaqaysan. afartii sano ee la soo dhaafay waxaa soo laabtay maqaamka dalka iyo danaynta caalamka ee arrimaha Soomaaliya iyadoo ay sare u kacday rajada ah in waddanku cagihiisa dib isugu taago isla markaasna dib u soo ceshado kaalintii bulshada caalamka. sidoo kale waxaa sare u kacay afartii sano ee la soo dhaafay tartanka iyo loolanka loogu jiro sidii saaxiib loola noqon lahaa Soomaaliya ama wax loola qabsan lahaa iyadoo dawladaha qaarna ay faragelin ku sameeyeen arrimaha gudaha ee dalkan soo kabashada ku jira si ay danahooda gaarka ah u meel marsadaan taasi oo ay si adag isaga difaacday dawladda Soomaaliya. dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxay isbedel ku samaysay siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka oo markii hore ahayd mid aan lahayn aragti iyo istiraatiijiyad ku aadan kaalinta Soomaaliya ee fagaarayaasha adduunka iyo halka ay taalo masaalixda Soomaaliya. madaxweyne farmaajo waxa uu iska diiday in dawladdu ay laaluushaan si ay u helaan codka iyo mowqifka Soomaaliya, laakiin madaxweynuhu waa iska diiday dalabkaasi waxaana saxaafadda adduunka ay soo bandhigtay madaxweyne farmaajo oo ganafka ku dhiftay 80 milyan oo dollar oo dawlad la yaqaano ay u soo bandhigtay. dhinaca kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxyaalaha ugu weyn ee dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamku ay ku amaaneen waxa kamid ah inuu ka maran yahay musuqmaasuqa iyo boobka hantida ummadda Soomaaliyeed. sababahan iyo kuwa kale oo badanba marka la fiiriyo in badan oo shacabka Soomaaliyeed ka tirsan waxay qabaan in madaxweyne farmaajo mudan yahay hogaaminta dalka afarta sano ee soo socota.